السلام عليكم أخيرا فيلمكanu maanta waxa uu ku saabsan yahay laba wiil oo ka qeylisiiyay magaalada ay joogeen oo waxaan ku yiri bangiyadii nafta u keenay sida uu dhacayana xataa uu ku dhowdaan la yaabayba saadirtay si aad u ogaato koobkaaga shaaha soo qaaday sharaabka let's go kan waa aktarka filimkana waxa uu ku bilaabmay 1990kii waxaanu arkaynaa Sahiir oo iibinaya fargalo kadib ninka lacagta ayuu siinaya marka uu lacagta ka qaato waxa uu cararaya dhanka iyo masraxii uu ku noolaa oo sida uu galo waxa uu arkayaa aabihii waxaana la yiraahdaa aabihii Iqbaal waxa uu siinaya $25 waxaynu ogaanaynaa Iqbaal inuu qaatay deyn aad u badan bangiguna waxa uu ku yiri haddaad waqtigeeda ku bixin weydo deynta waxa laga qaadanaya masraxaaga oo dhan nasiib xumo deynta waa wala daahaya kadib waxa uu imanaya Anderson oo ah maamulaha bangiga Iqbaalna waxa uu soo bandhigaya showga dambe ay ku qabanayaan meesha lacagta ay ka faa'iidaan inay iyagu qaateen gibigiisa waxa uu ka oranayaa inta hortu showga la gaadhin natus waxaad ku soo bandhigaysaa kadib waa ay bilaabayaan Iqbaalna waxa uu ka oranayaa Sahiir gal sanduuqa mise marka uu sanduuqa soo gala waa ay waayaan si markaba dhan kale ayaa uu ka soo boodaya waxayna tusayaan dhammaan indhasarcaadkii hayeen laakiin nasiib xumo Anderson waxa soo dhan kama yeelayo waxaanu ka oranayaa adeer waan iibinaya masraxa waayo deyntii maydaan bixin kadib Sahiir ayaa ka bariyay inuu ka laabto go'aanka mise aabihii waa uu ka xanaaqay arrinkaas ku oranaya wiil yahow ilaali karaamadaada oo dadka ha bariyin kadib waxa uu ku qabanaya xabadda Anderson si uu dilo mise waa uu ka laabanaya go'aankiisa waxaanu ku oranayaa waxa doontaan sameeyay kadib waa uu istilaya gibigiisuga sanada kadib waxaanu arkaynaa Sahiir oo weynaado xadaya bangi kadib marka uu sidaa dhulka ugu soo daadago ayay waxaan arkaynaa lacagta oo daymaxay samada saa uga soo daadaadanaysa dadkuna adaa sheegaya waa nimca cirka ka soo daadatay dadkuna ay urursanayaan waliba kadib mootadiisa ayaa uu kaxaysanaya Sahiir wuxuuna isku dayayaa inuu ka baxsado askarta iyaguna sidoo kale waxay isku dayayaan inay qabtaan Sahiir mise mid ayaa uu garaacay askarta waxaanu baabi'inayaa dhulka la sameeyaa dhammaan baabuurta askarta qaban kari waayeen kadib waa uu ka baxsanayaa isla markiiba askarta ayaa imanaysa bangiga waxaynu ogaanaynaa in ninkaas ka lahba bangigan uu yahay Anderson waxaanu ku oranayaa askariyadii Victoria adeer waa bangiga labaad ee leeyahay sidan loo xado ninka xadayana calaamadan buu ka tagayaa maxaa xala wuxuuna ku qorayaa gidaarka dhammaantiin waa idinka argoosanaya akala waxaanu arkaynaa Sahiir oo hortaagan masraxii aabihii wuxuuna xasuusanayaa markii uu aabihii istilay ee la qaadayay sidoo kale waxa uu hor istaagayaa meeshii wuxuuna oranayaa waan soo laabtay aabe akala Jay iyo Cali ayaa imanaya magaalada sidoo kale waxaynu ogaanaynaa inay yihiin dambi baadhayaal Hindi ah kadib waxa la kulmaysa Victoria waxayna u sheegaysaa inay ka caawiyaan sida ay u qaban lahaayeen ninkan tuuga ah ee magaaladii rogay Sahiir waxa uu ku soo laabtay masraxii oo dib u soo iibsaday uuna hagaajiyay kadib mise waxa soo galaysa gabar la yiraahdo Caaliye waxayna la kulmaysaa Sahiir waxayna ka dalbanaysaa inuu ku daro dadka masraxa ka ciyaaraya waxa uu ka oranayaa kaliya ta waa waxaan ku siinayaa 5 minuut oo kaliya waxaad ciyaar hayso dhan miiska soo saar iyo toos gabadhuba waxa sida biyaha ay u cabto aad ayaa ay taaska u taqaanay isaguna waa uu ka helaya kadib waxa uu ka yeelayaa inay ku soo biirto dadka masraxa ka ciyaaraya waxaan tagnaa saldhigii ciidanka waxaanu arkaynaa Jay oo ku leh sidee sanad gudihii 2 jeer uu ku xaday ninkan bangiga sidoo kalena uu uga tagay waji qoslaya iyo qoraal cadeynaya inuu rabo qofkaas inuu ka argoosanayo cadaawadiisa ka dhaxayso qorshe iyo kaarta ayay u wada dhigayeen kadib waxa uu ka soo muuqanaya TV-ga wuxuuna u digayaa tuugaas inuu mar dambe isku dayo inuu bangi kale oo lacag taala uu xadaamo soo dhaco na oranaya hadduu sidaas sameeyo mar dambe jeelka ayaanu dhigaynaa kadib Sahiir ayaa arkay oo aanu ku qoslaya ninkan waxa uu leeyahay maalinkii labaad waxa uu tagayaa saldhigga askarta meesha ayaanu kula kulmayaa Jay wuxuuna ku oranayaa waan aqaanaa ninka tuuga ah idin wareeriyay wuxuuna tusayaa nin kula jira sawir oo wajiga wax marsan waxaanu u sheegayaa inuu isaga yahay ninka tuuga ah oo la yiraahdo Charlie wuxuuna ku oranayaa maalin ayaa uu masraxa ka soo jeedinayay show waa uu cajabin waayay showgii dadka kadib waxa uu isaga tagay masraxii waxaanu iri waa idinka argoosanaya dhammaantiin Jay waxa uu weydiinaya adigu sidee ayaad ku ogaatay inuu yahay ninka tuuga waxaanu ku oranayaa wiligiiba ninkan meelaha ayaa uu ku qorqori jiray wajigan waxaanu inta badan raacin jiray warqad ah dhammaantiinba waa idinka argoosanaya kale waxa uu ku oranayaa anigu waxaan rabaa inaan caawiyo Jayna waa uu ka yeelaya waxaanu ku oranayaa bari iigu imo bangiga taasna waxa uu guuleysanaysa kaartidii uu rabay maalinkii labaad bangiga ayaa uu tagaya waxaanu tusayaa sidii ninkii sameeyay isagaaba bangiga duubanaya oo kamarad ayaa uu sitaa sidoo kale waxa uu ogaanayaa xagga ay taala khasnadu kadib aqalka ayaa uu ku soo laabanaya waxaanu qorsheynayaa qorshe ama kaarta aad u fiican si uu u fuliyo markaas maalinkii labaad Jay ayaa ula hadlaya wuxuuna u sheegay inuu maanta dhacayo bangiga waayo maanta bishu waa 1 waana Abriil oo ah maalinta adduunka lagu xuso Jokerska Jay waxa uu ka oranayaa Cali tuugu meel kasta ayaa uu ka soo bixi karaa is ilaalim si Cali waxa uu arkaya lacagta cirka ka soo daadanaysa bangigana waa bal la xaday Sahiir waxa uu isku dayay inuu baxsado ilaa ay marka dambe ku qabtaan fooqa dushiisa
nin bangi dhan xaday baa fikir waayaya kadib xadhig ayaa uu tuuranayaaba fooqa ayaa uu ka boodaya mootadiisa ayaa weliba xadhigga saa loo dulmarinaya kadib marka uu dhulka kusoo degana waa uu baxsanayaaba waabay qaban kari waayaanba sidaa askartu kaga hadhi maysa waaya eryanaysaa ilaa uu biriijka soo gaadho meel walbana laga soo xidho waxa uu ku fikirayaa siduu uga baxsan lahaa mise biriijka waa la dallacaya oo hoos ayaa uu sii siibanaya si ay u qabtaan wayna sugayaan isagaaba faji u soo degayba mootadii ayaa uu xoog ku wadaya kadib biriijka ayaa uu ka boodaya intaanu ku dhicin webigii mootadiisi waxay isku beddelaysaa doonyar ee shaala waa ay eryanayaan iyagoo yaaban ilaa marka uu dambe uu ka quuso biyaha hoostooda wayna waayeen mise waxa uu ka soo baxaya dhinaca kale wayna yaabayaan laakiin jay kama hadhayo oo diyaarad ayaa uu ka daba qaadanaya ilaa uu marka dambe isku daya inuu xabad ku dhufto waanu ku dhufanaya oo garabka ayaa ay kaga dhacaysaa dhaawac marka uu noqdo meel hoose ayaa uu gelaya askartuna meesha ayay imanayaan mise cidba ma joogtaba waa uu ka baxsaday iyaguna waxay la yaaban yihiin sida uu ku baxsaday markii habeenkii la gaadho waxaynu tegaynaa showgii oo masraxii la furayba sahiirna uu show ku dhigaya meesha oo aan weliba xabadii saaka ku dhacday aanay kuba oolinba oo waxaad moodaaba inaan waxba ku dhicin siduu u ciyaarayo markaa dadku waa ay ka helayaan showga kadib marka uu dhammaado showga mise jay iyo cali ayaa u imanaya dhinac walbana askari ayaa kaga wareegaysa wuxuuna ku odhanaya ninka Charlie ahba waa adiga waxaanad iigu soo dhawaatay si aad u ogaato wax kasta ku saabsan bangiga sababtoo qorshe ayaad wadatay wuxuuna ku odhanaya iska siib garanka sababtoo saaka ayaa xabad kugu dhuftay taasaana caddayn wah inaad tuug tahay oo garanka sidaa isaga bixiyo way u qaadan waayeen sababtoo dhaawiciiba kumaba yaallaba jayna waxuu ku odhanaya xaggaad dhaawicii geysay sahiirnaynta uu saa u eega ayaa uu aayaro dhalati ku qoslaya waxa uu ku odhanayaa marka labaad xabadda madaxa ayaan kaaga dhufanaya kadib sihiir aqalka ayaa uu ku laabanaya waxa uu hor fadhiisanayaa muraayadda markaa mise waxaynu arkaynaa inaanay ahaynba hadhkiisiyo uu yahay walaalkii oo mataana ay yihiinba waxaana lagu magacaabaa Samaar waana ninka dhan ee hawsha ka dambeeya laakiin cilad waxa uu qabaa caqligiisa yara kooban hadalkiisuna hagahaga ayaa uu leeyahay oo ma toosna dib waxa uu ka daweynaya walaalkii xabadii ku dhacday saaka kadib waxay xasuusanayaan iyagoo yaryar oo wada ciyaaraya aabahoodna uu sawir la wada gelaya labadoodaba maalin ayaa labadoodu waxay wada korayaan meel aad u dheer kooda hordheereeya ayaana la eegaya mise nasiib xumo xadhigga ayaa la go'aya sahiirna intaanu dhicin gacanta waxa qabanaya Samaar bihiina waxa uu ku odhanayaa wax kasta oo dhaca walaalka ha sii dayn gacantiisa marka ay sameynayeen sixirka sanduuqa Samaar waxa uu ku jiray sanduuqa hoostiisa wuxuuna arkayay markuu istirayay aabihii aad ayaa u ooyay kadib waxay tangayaan bangiga aabihii dartii isku dilay waxayna go'aansanayaan inay ka argoostaan bangiga waxaynu ogaanaynaa mar kasta oo miduu dhuuntay inka kale meesha uu ka soo baxo dadkuna waxay u maleynayeen in ninka bangiga dhacaya uu yahay keligiisa ma ogeyn inay mataana yihiin kadib marka ay isku yimaadaan ay balaankii ay ku xadi lahaayeen bangiga dhameeyeen habeenkii ayaynu arkaynaa Samaar oo kolba xasuusanaya Caaliya markay showga dhigayeen aad ayaanu uga helay kilabaad raggii bangiga lahaa iyo waxa wada kulmaya jay waxayna ku odhanayaan jay iyo Cali adar shaqada waa leedinka fadhiisanaya waayo wad qaban kari weydeen tuuga hubkana waa lagala wareegaya intii ay madaarka ku sii socdeen ayaa Cali waxa uu ku qancinayaa inaanay u laaban Hindiya ilaa ay qabtaan tuuga waana ku qancaya marka dambe kadib waxay bilaabayaan inay faji u dhigaan tuuga kadib aqalka ayaa ay ku soo laabanayaan waxayna ku fikirayaan maxaa uu bangigan oo kaliya u rabaa inuu baabi'iyo Sahiir maalmo kadib waxay u shaqo doonanayaan masraxa Sahiir uu leeyahay alinkii marka uu dhameeyo Samaar ciyaartiisa jay waa uu dabageliya intaanu wiishka raacin dusha ayaanu ka fuuraya cidna ma arkayso marka ayaa uu arkaya Sahiir mise in yarba kadib waxa uu arkaya Samaar wuxuuna ogaanayaa inay mataan yihiin waana sirta aanay cidi ogeyn waxaanu Samaar ku odhanayaa Sahiir berri waa axad usbuuc kastana axadda waan baxaya waayo hal qof ayaynu wadanahay jay aqalka ayaa uu ku laabanaya faja ama qorshe ayaa uu diyaarinaya wuxuuna rabaa inuu Samaar saaxiib la noqdo waayo waa qof miskiin ah dib Samaar waa uu diyaar garoobaya si uu baxo aad ayaan u faraxsay oo dibadda ayaa uu ku faraxsan yahay waayo Sahiir 6 cisho ayaa uu dibadda u baxaa Samaarna maalin oo qura tuna waxay tahay inuu yahay Samaar qof aan dhamaystirnayn waana miskiin waxaanu arkaynaa jay oo gabihaanba wajigiisii soo bedelay tima dhaadheerna soo gasho qof kale iska soo dhigay waxaanu u imanayaa Samaar waxaanu ku odhanayaa cuntaysi kadib Samaar waxa uu siinayaa cunto waa isbaranayaan wayna wada ciyaarayaan waxayna noqonayaan asxaab waxayna wada qaadanayaan waqti aad u fiican aadna way u faraxsan yihiin Samaar waxa uu siinayaa tigirka showga soo socda ay dhigayaan waxayna ku heshiinayaan inay saaxiibo noqdaan dhanka kale waxaynu tegaynaa bangi kale oo ay rabaan inay dhacaan mise waxaynu arkaynaa Sahiir oo curiyaan oo qof gaboobay iska soo dhigay wuxuuna sawirayaa meesha oo dhan marka uu taga khasnadiisa waxa uu kala soo baxay sawirkii aabihii iyo walaalkii iyo $25 oo berigii siiyay aabihii wuxuuna ballan kula gelayaa inuu baan kasto iska leeyahay Anderson dhaco kadibna noloshiisa dhanba uu halka ku soo baabiyo kadib waxaynu tegaynaa showgii lagu qabanayay masraxa waxaanu u dhigay showga si caadi ah jayna waa uu daawanayaa wax kasta
isbuuc kadib haddana mar kale ayay kulmayaan Samaar wuxuuna ka odhanayaa Caaliye way ku eegaysay markii aad showga aad qabanaysay miyaa ku jeceshahay. Samaarna waxa uu sheegayaa inuu jecel yahay Caaliye. Kadib Jay waxa uu ka odhanayaa dadkoo dhan waxay moodayaan Sahiir iyo Caaliye inay isjecel yihiin ee lama dhahayo Samaar. Kadib waxa uu ka baqayaa inay Caaliye jeceshahay Sahiir oo aanay isagaba jeclayn. Waxa uu ku laabanayaa walaalkii waxaanu ka odhanayaa labadeen waa inaynu waqtiga isku bedelnaa sidaan wax soconaysa maba ahaba lixna aniga leh adiguna mid ka qaado. Sahiir waa uu ka diidayaa inta hore Samaarna waa uu ku celcelinayaa ugu dambeyn Sahiir waa uu ka yeelayaa arrinkaas. Ahaatee Sahiir waxa uu la yaabay waxa uu sidan u sameynaya Samaar. Kadib Samaar showga ayaa uu soo bandhigaya aadna waa u farxsay waayo Caaliye ayaa u arkaya markay dadku u sacabtumaan Caaliye haddana gacanta qabanayso haddana dadka oo dhan dib ayaa ugu sacabtumayaan sababtoo ah showgu aad ayaa u shidna. Caaliye waxay la yaabaysaa siduu isku bedelay kadib waxay ka dalbanaysaa inay soo wada cashiyaan isna waa uu ka yeelaya kadib waa uu diyaar garoobaya Sahiirna waxa uu ku odhanayaa waxaan la ballansanayaa Caaliye waxaanu ku odhanayaa talo ma adiga ku jeceshahay mise aniga. Una ka dalbanaya inuu qariyo sirtooda waayo hal tallaabo kaliya uga hadhay dhammaan aargoosigooda. Una ka odhanayaa markaba way ku garanaysaa markay sidaa ku aragto adigu hagahaga ayaad leedahay aniguna melihi wuxuuna ka odhanayaa markasta waxaad ahaanaysaa harkayga. Samaar waa uu xanaaqaya wuxuuna ka odhanayaa anigu ma ihi harkaaga. Waxaan ahay qofka qorshe kasta oo bangiyada ku dhacaysa kuu dhiga taasina waxay caddaynaysaa inaan gebi ahaanba anigu aan ka caqli badanahay. oo kale maanta wixii ka dambeeya adiga ayaa noqonaya harkayga oo dadka ka dhuumanaya Sahiir waa uu dhirbaaxaya kadib meesha ayaa uu isaga tegaya Samaar. Muraayada ayaa uu hor istaagaya ilmadana waa uu iska biinaya dhanka kale Jay shir ayaa uu qabanaya waxa uu yeedhaya Anderson waxaana uu sheegaya inuu qofka xaday bangigiisa uu yahay Sahiir wiilka uu dhalay Iqbaal. Isu dilay dartaa markii aad ka qaaday masraxiisa sheekadaasina waxay dhacday 25 sano ka hor sidaas ayaanu dib ugu soo celiyay shaqada Jay. kala Samaar iyo Caaliye way kulmayaan mid kasta waxa uu sheeganay ka kale jacaylkiisa kadib waxay raacaysaa tareenka isaguna waa macsalaameynaya kadib waxa uu tagaya Jay wuxuuna uu sheegaya wax kasta oo Caaliye uu sheegay mise Jay waxa uu sheegay inuu yahay dambi baare. Samaar waxa uu ku odhanayaa wada khiyaamisay saaxiibtinimo dambe nagama dhaxayso Jay waxa uu ku qancinayaa inaanu xadin bangi dambe uu yahay qof wanaagsan shaqadana isaga tago waxaana uu sheegaya inuu og yahay inay yihiin mataan oo aanay ahayn hal qof. Samaar waa uu yaabay markuu siraa Jay saa u gacan qaadba waa uu tuuraya dhulka ayaa ku tuuray mise waxaanu ogaanaynaa inuu yahay Sahiir oo aanu ahaynba Samaarba. aad ayaa uu yaabay waxaana uu sheegay inuu soo daba galay Samaar markii uu Caaliye la joogay sidoo kale adiga ayaan kugu arko walaalkii la jooga waxaana ogaaday inaad sirteeda ogaatay. waxaan ku sugayay baarkinka waana suuxiyay Samaar kadib waxaan soo xidhay dharkiisii si aan adiga ku diro kadib waxa uu ku xidhayaa meel uu tareen ku soo maro isla wuxuu ku odhanayaa halkan ayaan kaaga tagay waxaana soo xadaya bankigii ugu dambeeyay. kadib meesha ayaa uu isaga tagaya waana ku istaaraya tareenka isla markiiba Cali ayaa ka soo gaaraya meeshana waa uu ka badbaadinaya. kale waxaan arkaynaa Sahiir iyo Samaar oo isku diyaarinaya inay bangiga dhacaan askartuna meesha xoog ayaa ay ku soo galaysaa waliba gaar ahaan bangiga. askartii waxay ku furayaan suntaasuna naqaska ayay ku dhajinayaan iyaguna dharkii askarta ayay soo xiranayaan meeshana way ka soo baxsanayaan isla markay ka soo baxsanayeen bangiga ayayba qarxiyeenba. kadib askartii oo dhan baa ka soo daba cararaysa iyaguna askartii ayaa madax isku gelinaya wayna ka baxsanayeen kadib markaas waxa dhacaysa Samaar iyo waxa isku horimanaya Jay Samaarna waxa uu ka jiraya bir Jayna mootadii ayaa la dhacaysa lugta ayayna waliba mootadu ka qabsanaysa. labadooduba meesha way ka wada baxsanayaan Jayna aad ayaa wax noqaya waxaan odhanayaa waan ka argoosan doonaa kadib marka subaxii la gaadho ayaa labadooda isla baxsada meel walba ciidan baa ka weeraranaya waliba diyaarad ayaa ay wateen. ibana diyaaradda Caaliye ayaa ka soo degaysa waxayna u yeedhaysaa Samaar sidoo kale waxay ka dalbanaysaa inay isdhiibaan isaguna mar raba inuu ka tago Caaliye walaalkiina wuxuu ka odhanayaa ina mari kadib waxa soo gaaraya meesha dhinac walbana waa lagaga iimanayaa Sahiirna sheekadiisa halkaas ayaa lagu soo afjaray. kadib waxa uu go'aansanayaa inuu isdhiibo waxaanu u tagayaa Jay waxaanu ka odhanayaa wax walba sameeyay cadeynteeda ayaan ku siinay laakiin Samaar iska sii daa waxbana ma uu sameyn. Jay waa uu ka ogolaanaya waxaanu isna u tagayaa Samaar sidoo kale waxa uu ka odhanayaa maanta kadib ma tihid harkayga waxaanu u noolaanaysaa sidii qof caadi ah. waa inuu midkeen dhintaa si uu ka kala u noolaado kadib waxa uu isku tuurayaa bariishka isla markiiba waxa gacanta ku soo dhigaya Samaar. Sahiirna waxa uu ka odhanayaa iska kaysii daahaan dhinta aduguna iskala noolo Caaliye laakiin waxa uu ka odhanayaa aabahay wuxuu igu yiri marnaba gacantiisa sii day. kadibna labadooduba meesha ayay ka wada dhacayaan waxayna xasuusanayaan wax kasta oo ku saabsanaa noloshooda sidaas ayayna ku dhimanayaan. kalena bangiyadii Anderson oo dhanna waa la xidhaya isla Caaliyena halkii masraxi ayay ka sii wadaysaa hawsha ay ka wadeen. yaaray filmkan maanta halkaas ayaa uu ka eegyahay filmka ilowna like subscribe iyo share tira waxay leeyahay nabadee.